Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Wuxuu yiri habeen iyadoo xaaskaygu hurdaysa ayaan waxaan ka fikiray qaabka ay nolosheeda tahay. Waxaan isdhahay maskiintani markay ku soo noolaatay guriga labadeeda waalid ayay ka timid si ay ula noolaato nin aysan hore u aqoon. Waxay ka timid gurigii labadeeda waalid ee lagu koolkoolin jiray. Waa gurigii ay iyada amiiradda ka ahayd. Waxayna timid guri iyada la amrayo ayna fulinayso wax waliba oo sharci ah. Waxaan nafteyda weydiiyey siday ragga qaar u dhayalsadaan inay xaaskooda gacan u qaadaan una geystaan dhaawacyo. Sidee u dhayalsadaan ragga qaar in ay muddo dheer gurigooda ka maqnaadaan iyagoo saaxiibadooda waqti badan la qaadanaya weliba intay carruurtooda iyo xaaskooda la joogaan ay aad u yar tahay. Sidee ragga qaarkii u dhayalsadaan in ay xaaskooda xabsi guri ugu jirto oo aanay banaanka u saarin si ay waqti wanaagsan usoo wada qaataan. Waxaan kaloo isweydiiyey sidee ragga qaar u dhayalsadaan xaaskooda ay seexato iyadoo laabteeda ka buuxdo cayl iyo murugo ay u qabto ninkeeda dhibaatada uu u geysto awgeed. Sidee ragga qaarkii u dhayalsadaan in ay xaaskooda iyo ubadkooda ka safraan muddo dheer iyagoo wax dana ka lahayn mustaqbalkooda iyo waxay ku sugan yihiin. Sidee ragga qaarkii ugu xoobsiibtaa mas-uuliyad saaran dayacaad ee dayacay mas-uuliyaddaasna maalinta qiyaamo waa la weydiin doonaa. weli ma isweydiisay sababta shirqoolka haweenka? Waxay haweeneydii boqorka iyo saaxiibadeed u shirqooleen nebi yuusuf soo ma ahayn jacayl, qurux, xishood iyo dabeecad wanaagsan? Taasi macnaheeda dumarka shirqoolkoodu waa siday u hanan lahaayeen qofka ay jeclaadeen. hase yeeshee maxay ahayd sababtay u shirqooleen nebi yuusuf walaaladii iyagoo rag ah? mise ogtahay in shirqoolka ragga laga hor shirqoolka dumarka? mise ogtahay in shirqoolka raggu aanu ahayn mid jacayl uu ahaa xaasidnimo iyo dulmiya? mise ogtahay in shirqoolka dumarka uu sheegay boqorkii qabay haweeneydii wax jeclaatay balse shirqoolka ragga uu sheegay nebi? taasoo tilmaamaysa in shirqoolka ragga ay aad khatar u tahay. ugu dambeyn waxaan idinkula talinayaa in mar weliba aad iskugula noolaataan si dabacsan. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan. haddii uu ku anfacay laag saar lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.